wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ka socday hay'ad laga leeyahay dalka Finland. Wasiirka ayaa madaxda hay'adda ka socotay kala hadlay arrimaha xasilinta nabadeynta dhismaha golayaasha degmooyinka iyo arrimo kale. Ku-xigeenka agaasimaha guud ee hay'adda ayaa sharaxaad ka bixiyay shaqada FCA ee Soomaaliya ayaa sheegay in ay taageeraan dhismaha golayaasha degmooyinka iyo arrimaha dib u heshiisiinta. Mas'uuliyiinta ayaa sidoo kale ka hadlay arrimaha bini'aadanimada iyo barnaamijyada ay ka fuliyaan magaalada Baydhabo iyaga oo ballan qaaday in ay siin doonaan gargaar dheeraad ah. Dhankiisa wasiirka arrimaha gudaha Axmed Macalin Fiqi ayaa hay'adda FCA ku ammaanay shaqada ay ka qabtaan Soomaaliya isagoo soo qaatay in dowladda ay wado qorshayaal dib u habeyn loogu sameynayo hanaano kala duwan oo ay ku jirto mideynta hanaanka gargaarka sida ay uga go'an tahay ballaarinta dhismaha golayaasha degmooyinka iyo dhiirgelinta guud nabadda iyo dib u heshiisiinta. Wasiirka arrimaha gudaha ayaa ugu dambeyntii ka hadlay xaaladda abaaraha ee dalka isagoo oo faray in hay'adaha gargaarka ay si siman u tagaan dhammaan maamulada iyo deegaanada kala duwan waxa uuna adkeeyay in la mideeyo dadaalada gargaarka si looga baxo xaaladda khatarta ah ee ay abaartu keentay.